السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu Axmed Abu Maxamuud Maxamed. halkan waxaan uga salaamayaa ummadda reer Somaliland dhammaanteed. si qiimo badan ayaan halkan uga salaamayaa. mawduuc kooban ayaan halkan kaga hadlayaa. waxaad arkayseen kulley muddo 4 sannadoodaba waxaa ka socday dagaal ayaa waxa uu ka socday bariga deegaanka Ceelaf Weyn. waxaa jiray jamhado ka baxay dalka waqtiga 4 sannadood gudahooda. jamhadahaas waxay ahaayeen wax talooyin ku baxay, talaha barigoon isku baxay bay ahaayeen. dagaalka halkaa bariga ka socdaana dagaal ay habaryoon iska midaysan yihiin ayuu ahaa, sidaad 4 sanaba miidiyaha aad ku arkayseen. waxaad kaloo arkayseen dad isimaa oo sheeganaya teatal walba ama boqor sheeganaya ama salaadiin sheeganaya oo min tuulo min gobol ka hadlayay ayaad arkayseen, min degmo. waxaad kaloo arkayseen rag xukuumadda ku jira oo ka hadlayay ayaad arkayseen oo leh wada caaraanuna. that's right, arrintaas run bay ka sheegeen. dadkaasi wada caare weeye. waad arkayseen caare markii uu soo noqday 4 bilood ayay dadkaasi halkaa caare hortaagnaayeen. xukuumaddu mar hore dee soo qabsan kari lahayd, mar kastaba iyaga unbaa dib u dhigayay arrintaa. markii dambena waa kuwii ka badheedhay markii uu taliyuhu sheegay inuu ninkaasi yahay dembiile qaran oo dad fara badan oo xasuuqa uu geystay. waayo wuxuu Ceelaf Weyn ka sameeyey waa la ogyahay. markuu direyska dowladda xidhnaa ninkaasi dee wuxuu dilay 10 nin ayuu dilay oo biciida 8 bahaa iyo nin Axmed Faarax iyo nin Basanbuur ayuu dilay. cidna kama qarsoona. 23 qofna beriga uu ku dhaawacay intii uu shaarka dowladda sitay. markii uu soo noqday waa tii uu ku laayay Darar Weyne odayaasha raqayada waa tuu ku laayay. 5 qof ayuu ku dilay Darar Weyne iyo islaan waayeela oo ku dhaawacay. cid waliba waa ka dheregsan tahay. markii dambena uu halkaa rugay iyo meesha uu tegayna 10 nin ayuu soo diray oo raggii xulfadiisa ahaa uu hogaaminayay ninkii la odhan jiray Kaysal Libaaxe iyo ninkii la odhan jiray Dhidba Eeraan. waad arkayseen wuxuu 3 dumar oo uur leh 4 dumar oo 3 uur leedahay ayuu halkaa ku dilay oo ku xasuuqay iyo odayaal waayeela. halkaana khasaaro fara badan ayuu ka geystay. waxaasoo dhan ayaa caare uu dilay. taladaa uu dadkaa lagu leynayay oo dhammaantood oo dhan isku soo wada duuba alxaasil waxa ay tala habaryoonis ayay ahayd. dadkaa waxaa lagu leynayay tala habaryoonis bay ahayd. waa kuwii caddaystay 4 sano miidiyaha ku jiraan. waa qiraal, waa caddaan inay tala habaryoonis ahayd. haddeerna min isin ilaa isimadii ilaa salaadiintii ilaa boqorradii ilaa iyo raggii mas-uuliyiinta ay dowladda u shaqaynayay waa kuwii caddaystay ee yidhi waxaanu nahay wada caaraanu nahay. waa runtood waa wada caare. waxaas oo dila iyo waxaas oo dhibaataana qayb lixaadle ayay ka ahaayeen. waxaanu idiin sheegaynaa horta colaad 4 sano ah ayaad wadeen oo weliba reerkaa yar ee baho ayaad la dagaalamayseen 4 sano habaryoonisay aydan kala hadhin. colaadiinni way cadda way idin rikoodh garaysan tahay, miidiyaha idinku jirtaa. 4 sanaba dagaalkaad cilaaminayseen, iminkana waxaad la soo baxdeen wada caaraanuna. waxaan idin sheegayaa raggiina ceerigaabo jooga ayaan idin sheegayaa mushahar dambe oo dowladeed inaydan qaadan doonin oo ceerigaabo aydan ku cuni doonin. taa ku biyo cabba. waxaanoo salaadiin ay wada caaro noqdayna waxaan idin sheegayaa iyo waxaan maalin walba aad miidiyaha la taagantay waxbaanu dili jirnay. horta waxaad ka adkaan jirteen baad dilaysaan. waxaad ka adkaan jirteen ayaa dilaysaan. waxaan kaloo idin sheegayaa wada caaraad noqoteen. waxaas oo dembiyana dad baad ka gasheen oo habar jeclaad ka gasheen oo khaasatan waxaad ka gasheen reerka baha la yidhaahdo. waan idin ogna. horta wixii halkaa ka joogay raggii burco ka tegey ama hiilka uga tegey ama uga tegey Hargeysa hiilka horta halkaasi bad xidhan ayay idinku noqotay.
nin dambe waddada soo mari maayo hooyadeeday ka tahay waad ku biyo cabaysaan wallaahi kii halkaa soo mara wallaahi qadaadkaanu ka biraynaa wallah qowlkii ilaahay baan ku dhaartay waxaan idiin sheegayaa wada caaraad noqoteen haddaba bal reerkanow yaa shaar dambe idin soo xidhanayo annagana soo hor fadhiisanayo odaynoo metelaya ina cabdiqani waa adeerkiisi wuxuu ku hadlayay waa ninkii ugu weynaa waxaa la yidhi labeebku habartiisu u kacsadaa war markii jaamacadduba dadka lagu leynayay ina cabdiqaniyow xaggaad joogti ina cabdiqaniyow xaggaad joogti yaa aad weliba lacagta xabaalaa la baxayseen xaggaad joogti xiniyuun xaggay joogeen yaa ma maanta ayaad waxaad tidhi reer yar oo la yidhaahdo boho ayaan awooddii garxaajis oo dhan isugu geynayaa oo aynu ku dilaynaa war annaga maxaa naga waray annagu ma dowlad baan haysanaa mise kursi baan ku fadhinaa yaa xiniyaha aad u weyday xasuuq iyo jaamac dubbad ead annaga noo heshay horta annaguna waanu iskaa baraynaa yaa 4 sanaanu dul qaadanaynay annagana dulqaadkayga waanu soo dhammaanay waa naga soo dhammaaday rag iyo rabbi toonna dad aan is aqoon baa tihiin ama ism haada ama xukuumad ku jira horta annaguna maantaanu xiniyahayga idin tusaynaa bil gudaheed ayaadna waxaanu nahay aad ku ogaan doontaan waadna arki weydeen caare dad soo qabsan kari waaye maanu ahayn dad ka baqanayana maanu ahayn wallaahi oo billaahi oo tallaahi noloshaan ku soo qabsanayna ama maydkiisa ayaanu miidhiyaha soo gelinayna run baan idin sheegaya xukuumaddana waxaanu leenahay gobolkan annaga faraha nooga qaad gobolkan waa la qabsaday faraha annaga nooga qaad reerka harti la yidhaahdo hartiga waxaan idin sheegayaa annaga iyo habar yoonis bari gobolkan waan ku kala adkaanaynaa bil gudaheed waa inaad kala baxdaan maatadiina ceeri gaabo bil gudaheed idinku isu kaaya daawada bil gudaheed waa inaad maatadiina kala baxdaan waan idinku adkaynayaa maatadiina kala baxa nimanka abtiyaday iyo gahayle warsangeli dhulbahante dulduulka yaga iyo in maanta halkaa ay nagaga dhimato hartii ma doonayno idinku dhex baad ka noqonaysaan dagaalka xuduudiinana reer waliba xuduudiisa adkaysto waa lagu kala adkaanayaa raggii salaadiintii yidhi wada caaraanu nahay waran inaan ka hubadnahay oo ka dambadnahay oo rag badnahay oo ka hanti badnahay oo aan 4 sanaba eegayay oo anigii si soo kay qaawiyay waxaynu kala qaadnaynu leenahay waxaynu kala qaadno ayaynu leenahay hartina waxaan idin sheegayaa ciidamada maatadiina si dhaqsa uga la baxa wallaahi bil quran ku qabanayaa bil kaliya bal meesha aad maraysaan iyo meesha aniga caare xabaasha aad igaga qarinaysaan ayaan idin sheegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh